guddoomiyaha degmada warta nabadda waxaa loo magacaabay marwo zaynab maxamuud warsame xilkaasna waxaa laga qaaday mudane yaasiin nuur ciise guddoomiyaha degmada waa beri waxaa loo magacaabay marwo rawda cabdulaahi colaad xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay mudane xuseen axmed culusow sidoo kale guddoomiyaha degmada shangaani waxaa loo magacaabay marwo basma cumar axmed xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay mudane cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir guddoomiyaha degmada shibis waxaa loo magacaabay marwo safiya sheekh cali jimcaale xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay walaalkay mudane axmed muumin maxamed sidoo kale guddoomiyaha degmada boondheere waxaa loo magacaabay marwo saynab yuusuf wehliye xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay guddoomiye qaasin cabdulaahi xasan dheere guddoomiyaha degmada dharkeenley waxaa loo magacaabay walaalkay mudane cabdiraxmaan sayd cali xuseen xilkaasna waxaa hore u hayay oo laga qaaday mudane cabdifataax nuur cali yaanyo sidoo kale guddoomiyaha degmada hodon waxaa loo magacaabay mudane maxamed axmed maxamuud cantoobo xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay axmed salaad ibraahim sidoo kale guddoomiyaha degmada yaaqshiid waxaa loo magacaabay mudane axmed xasan maxamuud xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay mudane cusmaan maxamuud cadaawe guddoomiyaha degmada wadajir waxaa loo magacaabay walaalkay cumar cabdulaahi xasan xilkaasna waxaa hayay oo laga qaaday mudane axmed cabdulle afrax guddoomiyaha degmada xamarweyne waxaa loo magacaabay cumar shariif maye xilkaasna waxaa hore u hayay oo laga qaaday walaalkay siciid cabdulqaadir siciid guddoomiyaha degmada xamar jajab waxaa loo magacaabay mudane cabdiweli cabdulaahi maxamed xilkaasna waxaa hayay oo laga qaaday injineer axmed cusmaan dhoorre guddoomiyaha degmada kaaraan waxaa loo magacaabay walaalkay cabdifataax nuur cali yaanyo oo hadda ah guddoomiyaha degmada dharkeenley waxaana xilkaas laga qaaday cumar mayre macow waxaa xusid mudan cumar mayre iyo cabdifataax horay ayay degmada kaaraan ugu kala wareegeen oo cumar ayaa kala wareegay cabdifataax guddoomiyaha degmada howlwadaag waxaa loo magacaabay mudane cabdikariin cali cabdi cali kaar waaye waxaana xilkaas laga qaaday oo hayay walaalkay ciise maxamuud guure guddoomiyaha degmada cabdilcasiis waxaa loo magacaabay walaalkay sharmaake maxamed ladane xilkaasna waxaa hayay oo laga qaaday cusmaan muxudiin cali cariif guddoomiyaha degmada dayniile waxaa loo magacaabay cabdiweli nuur faarax ayaa loo magacaabay xilkaasna waxaa hayay oo laga qaaday mudane axmed nuur cabdisiyaad halkaas ayay ku dhan yihiin xilka qaadistii 15 guddoomiye ee caawa xilka laga qaaday lana magacaabay 15 guddoomiye degmo waxaa soo noqday oo weli xilkoodii haya guddoomiyaha degmada kaxda iyo guddoomiyaha degmada heliwaa waa mahadsantiin